qiirooda waxaa ninka gabadha muuqaalka soo duubay hadday xaaskaaga tahay iyo hadday gabar kaloo stress haystay tahay intaba horta maysan ahayn iyadoo xaaladan ku sugan oo xaaladan ku jirto inaad muuqaal kasoo duubto haddana bulshada aad usoo gudbiso oo soo bandhigto runtii waa wax aada loogu xumaado gabar maysan kula dhalan maysan walaasha ahayn aniga ma garanaya gabadhan waxay kuu tahay laakiin markaan ka hadlayno sumcadda guud ee gabdhaha intaan way ka saraysaa maysan ahayn gabar inaad oo walaashaadii camal ah in muuqaal noocan a kasoo duubto weliba iyadoo xaaladan ku sugan xaqiiqatan horta gabadhan ilaha caafiyo adna ilaha ku caafiyo waxaan idinka codsanaya horta muuqaalkan inaa ugu duceysaan wiilkan iyo gabadhan horta gabadhan sida ay dad badan ay sheegayeen gabar qurux badan oo dhowrsan oo nidaamsan oo live soo geli jirtay oo fiican bay ahayd laakiin wax saan u bedelay waa dareemi karnaa waxaan ilaah ugu baryaynaa inay iyadoo caafimaad qabto iyo intaan ka fiican inaan aragno insha allah baliis idinkana u soo duceeya waxaan ilaah ugu baryaynaa inuu ilaah soo hanuuniyo una caafiyo adigana sidoo kale wiilow maysan ahayn gabadhan iyadoo xaaladan ku jirto inaad bulshada soo gudbiso runtii wax itaabtay aniga oo itaabtay oo aada ii darangeliya waxaa ahay gabar soomaaliyeed in muuqaal noocan iyadoo xaaladan ku jirto oo weliba hadalkeedii isku aadsanayn inaad soo doonto bulshada soo bandhigto xaqiiqatan waa wax aada loogu xumaado baliis an baliis hadda waa samaysay qaldaad gashay waaye dib damba ha u sameynin walaal adigoo maasan dib damba ha u sameynin walaashay adigana ilaah ku caafiyo ilaahna kusoo hanuuniyo ilaahan kaaga baryaynaa caafimaad taama baliis adigana u ducey baliis adigana u ducey oo caaya u soo qorin muuqaalkani biniya qof walba ha ugu duceeyo wiilkan iyo gabadhani ilaa war horta waxaa ogaataa muuqaalkan iyo muuqaalo badanba in aan indhaha la iska tiri karin midda koobaad iyo midda labaad muuqaalka waa falaqayn kartaa waxaad jeceshahay iyo wax kula habo waa ka sheegi kartaa laakiin waxaa marna indhaha la iska tiri karin oonan la beeni karin waxay tahay xaaladaha ay ku nool yihiin hablaha nala dhasha qaarkooda iyo wiilal nala dhasha qaarkoodaba taasaan indhaha la tiri karin marka aniga waxaan suubinayo oo waxaan u bareeray in aan camera la dhex maro walaalahay aana isku ekeysiyo iyaga anoo fiirinayo danta haysato oo la damqanayo xaaladda ay ku jiraan iyo waxa ay damacsan yihiin marka waxaa la dhahay niyahow haddaa adiga indhaha istiraynin orodoo tag labada buundo ee ku taala gobolka banaadir hablo waxaad arkaysaa dalkii joogaan canshuurtooda aad qaadanaysaan oo aad u dhaarateen inaad difaacdaan iyo inaad daryeeshaan oo aadan wax ka qaban karina marka kuwan ha ku mashquulina anaga u dadaaloono xumaan iyo wanaagba aan u galab jirno ma fahante waxaad isku daydaa inaad badbaadiso kuwa aad mas-uulka ka tahay ee aad leedahay hablaha haddaa u damqanayso waan u damqanayaa hablaha beerta jaadka fadhiya hablaha suuqyada qaarkooda fadhiya hablaha labada buundo hoostooda fadhiya ee agoon ku jirto oo lagu farxumeynayo oo lagu dilayo dalka dhexdiisa oo lagu bahdilayo kuwaa u dood kuwaana ku mashquulin kuwaa rag baa fiirsanayo waa falaqayn kartaa saaxiib uguma haysano laakiin anaga xuquuqdooda iyo waxooda ma raadinoona waxaan raadinoonaa inaan tusno dadweynaha meel walba aan joogno inaad dhibaatadan na haysato walaal anaga fiyuusna kuma raadinoon xoolana kuma qaadano ma fahante waxaan tusnaa dadweynaheena xaaladda ay ku nool yihiin rag iyo dumarba qaarkood marka walaal raalli noqo labada buundo dhexdooda nadiifso adoo raalli ah intaasaa ku leenaanaya